يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك والفرحة ترد الصدى. يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك عساكم من عوادا. يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك والفرحة ترد الصدى. يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك عساكم من عوادا. يا لا لا لو يا لا لا ننشد أحلى الأناشيد. يا لا 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 والبلابل تتعلم منا التغريد. يا لا لا لو يا لا لا ننشد أحلى الأناشيد. يا لا 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 والبلابل تتعلم منا التغريد. للي قال فرحة عيدوا للأطفال رد عليهم يا خي بيها الموال. يابا هذا العيد للصايم الله الله، للي صلى وهو قايم الله الله، للي سبح طول الليل بالفجر وعند الأصيل، للي أعطى من ماله وللي أكرم عياله، واللي المسجد ورملاته حفظت صوته وخطواته. يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك والفرحة ترد الصدى. يا boqolaal qof oo ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Ceerikaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa maanta isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee magaalada Ceerikaabo iyagoo halkaas ku gudanaya salaadii ciida ee Ciidul Fitriga sanadkan. dadweynahan oo ay ka muuqanaysay farxad iyo rayn isla markaana si weyn looga arkayay bilicda wanaagsan iyo dharka labiska ah ee maalinta ciida loogu soo talagalay ayaa waxa ay isweydaarsanayeen hambaliyooyin ku saabsan munaasabadda ciida ee sanadkan. madashii ay dadweynuhu isugu yimaadeen ee ay ku gudanayeen salaada ciida ayaa waxaa ka muuqanayay carruuro aad u fara badan oo si gaara loogu soo labisay isla markaana ku ciyaaraya agabka ay carruurtu ku ciyaaraan maalmaha farxadda ah ee maalinta ciidii ay ka mid tahay. salaadii ciidda markii la tukaday ayaa goobtaa waxaa ka hadlay culimmada waaweyn ee gobolka Sanaag iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Ceerikaabo. culimmadii waaweyneed ee goobta ka hadashay waxaa ka mid ahaa Sheekh Maxamed Cali Biixi oo isagu ku baraarujiyay bulshada reer Ceerikaabo iyo guud ahaan gobolka Sanaagba in ay midoobaan isla markaana ay ka wada shaqeeyaan horumarinta deegaanka. waxa uuna sheekhu si gaar ah dhambaal ugu diray maamulka Somaliland iyo madax dhaqameedka gobolka guud ahaanba isaga oo kula taliyay in ay walkan kor u soo qaadaan xagga horumarinta. isla markaana sheekhu waxa uu tilmaamay in baahiyaha taagan ee uu gobolku qabo ay ahaayeen kuwii jiray markii 1960kii uu yimi xaaji maxamed ibraahim cigaal madaxweynihii hore ee Somaliland gobolka, isla markaana ay odayaashii waaga joogay ay u gudbiyeen TV-ga aan la garanayn Axmed Shaakir Ceerikaabo.